gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Nowdal Professor Axmed Cigari Raash waxa uu maanta kormeer ku soo sameeyay iskuulada dugsiyada sare ee degmada Baki ee gobolka Nowdal halkaas oo maanta lagu soo gabagabeeyay imtixaanaadka dugsiyada sare ee guud ahaan Somaliland maalmihii ugu dambeeyay ka socday gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Nowdal Professor Axmed Cigari Raash waxa uu degmada Baki kula wareegay laba fasal oo ay bulshada Baki ku kordhiyeen dugsiga sare ee Muuse Rabiile ee degmadaasi Baki ku yaala waxauna bulshadaasi ku amaanay dadaalka wax ku oolka oo ay ka geysteen horumarinta waxbarashada degmadaasi Baki waxuna xariga ka jaray fasaladaasi isagoo sheegay in wasaaraddiisa waxbarashada iyo tacliinta sare ay il gaar ah ku hayn doonto horumarinta waxbarashada degmadaasi Baki oo tilmaamay inay bulshadeeda tahay bulsho u heegan horumarinta waxbarashada mahad celinayaa ballaaran dadkii labada fasal inoogu deeqay ee qurba joog ah ama guda joogba ah ee inoogu deeqay aad baan ugu mahadnaqanaa runtii iskuulkani weli kuma filla dhismayaashii aanu doonayna in laga qabto runtii kuma filla sababtoo ah waa degmo ballaaran degmadani ilaa 15 iskuul baa laga soo baxaya haddii la sanadka soo socdo 15 iskuul ayaa ardaydu kala soo socotaa runtii intaan leeg baan u baahanahay dhismahaan intaan leeg dhisan ayaan u baahanahay runtii marka saacadu wasiir waxaan kugu dardaarayaa inaanu afarta kalaas ee dhiman iyo library haddii carruurta buuga meeshii loo dhigi lahaa iyo masquulihii iyo dayrkii intaasoo fan buu u baahan yahay muxuu ahaay iskuulkani sidaa darteed waa inaanu dabagallaa wixii wasaaradda waxbarashada tamar lahayd ee hay'adaha weydiin lahayd mar labaadna aynu qurba jooga kullee ka daari mayne iyagana aynu u bandhignaa oo nilaa warhawshii bal hawl baa dhiman inaga soo caawiya Cabdi Fataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama.